بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وفديني صدحات سلسلة يتحنيها إن أقوم بعدرني محاسن الشريعة الإسلامية وحين هرب سوق هذا شريعة الإسلام كنا يتهاي شريعة كاملة ولما يسترن وحين كلا سوق هذا شمولية الشريعة الإسلامية شريعة الإسلام كي يصي وجود بالعالم تهاي وحين حلقة كسوق هذا قرب صدحات ورنية الشريعة الإسلامية شريعة الأخلاق والقيم شريعة الدين الإسلام كو والدين تي أخلاق ذا يقيم وحي إلى لساء وحول بأو وناكسن وحي ندتك ودك تا وقرب تا وحكست أوحن النبي عليه الصلاة والسلام شريعة إلهي سوبي بي أيها وحي إلهي كنت المعمي وإنك لعلى خلق عظيم أخلاق وين آيات قدر سوانتهي أيها النبي عليه الصلاة والسلام أصونا وحي النبي عليه الصلاة والسلام والنبي رسالة يدين تنلو سوبي بيه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحاول الله يصدر إذا إن أن لما يسترى أخلاقياتك ينقمض في عن أيوه النبي عليه الصلاة والسلام حديث كمشهور كمسلمين تعادوا يقعنان أخلاقنا قاسوح كان النبي عليه الصلاة والسلام مركز صار بلشو يجيل تربية وأخلاق وناكسن إن أخلاق رودي وناكسن لبوها نونه وآدم وحقوق عطان ودد كان رقم كورة في عن أخلاق رودي وناكسن هذا نقطة سيدات كلا نقميان هذا نقطة قيبها كلا دواني أخلاق وناكسن إلى علماء المسلمين تعيش شيئان ودمضن وهذا إسلام oo islaamka iyo diintu ay ku gaadhay ama maaragtay ku saamoobay dad akhlaaq wanaagsan akhlaaqdooda muslimiin wanaagsan akhlaaq fiican bay arkeen akhlaaq wanaag ajabisay shakhsiyaad baa ka islaamay way sii bateen ilaa wadamadan ku islaameen akhlaaq wanaaga dadka muslimiinta ah ee tarbiyadii nabiga kaleey salaatu wasalaam wata waxay amraysaa ama inoo diraysaa shariicada islaamku wax kasto akhlaaqo fiican ayayna faraysaa waxayna faraysaa runta iyo amaanada waxayna faraysaa ballanka oo la oofiyo waxayna faraysaa deeqsinimada waxayna faraysaa qofka martida ku ah oo la wanaajiyo oo la martigeliyo waxayna faraysaa hadal wanaagsan oo la isiraahdo waxay faraysaa waalidka oo loo ihsaan sameeyo waxayna faraysaa khalqiga ilaahay oo dhan oo ihsaan iyo wanaag loo sameeyo waxayna faraysaa cidda si gaar ah xuquuqoodu leh inaad xuquuqdooda u hagaajisid macallinka wax ku baraya qofka dariska kula qofka aad galaaska wada dhiganaysaan wax wada baranaysaan qofka aad jidka ku saaxiibteen qofka aad gaariga wada saaran tihiin qof walba kaamirada wax ka wada cunaysaan ixtiraam iyo qadarin iyo inaad xaqiisa siisid oo aad dulminin oo aad gardaraysan ayayna amraysaa waxayna faraysaa qofka weyn oo la ixtiraamo la weyneeyo kayar oo loo naxariisto oo loo tulo waxayna amraysaa qofka dhibaataysan oo loo gargaaro iyo danta dadka oo la gudo oo laga shaqeeyo qofka dhibaataysan in xaajadiisa iyo dantiisa la gudo waxayna faraysaa cafis la iska cafiyo qofka ku dulmiyo dhibaato ku geysta waxayna faraysaa miisaanka iyo dadka waxa loo miisayo in la hagaajiyo si cadaalad ah wanaagsan oo akhlaaq ku jirto loogu miiso waxayna faraysaa qofka miskiinka iyo ka faqiirka ah oo la taageero waxayna faraysaa in sabiilka oo jidka maraya in maaragtay ugu yaraan jidka loo tilmaamo haddii saadku ka go'aan saad la siiyo ayayna faraysaa waxayna faraysaa ka deynta lagu leeyahay in deynta laga cafiyo ayayna faraysaa haddii aan laga cafin karinna inta wax ka helayo in loo sugo oo aan maaragtay kalarka lagu dhigin ayayna faraysaa waxayna faraysaa oo wax wanaagsan inooga dhigtay qofka xanuunsan in la soo booqdo oo niyadda loo dhiso waxayna faraysaa kii dhintay in maaragtay la raaco oo la diyaariyo janaasadiisii waxayna faraysaa dadkii laga dhintay in loo tacsiyeeyo oo weliba cunto loo sameeyo oo maalmaha jikada laga xigsado ayagoo looga tudhayo waxoogaada culayska ku yimid waxayna faraysaa
sulxi iyo ummadda oo la heshiisiiyo bulshadoo la walaaleeyo oo walaalo ishaysto oo wanaagsan oo maaragtay xiriir fiican ka dhaxeeya oo gacan kaliya laga dhigo ijtimaacu lkalima kelmadda oo la mideeyo ayayna faraysaa waxayna bartay xuquuqda ay isku leeyihiin labada isqaba iyo mid walba xaqa laga rabo waxayna bartay xuquuqda lagu leeyahay ka talinaya iyo ka loo talinaya labada mid walba aadaabta iyo akhlaaqda laga rabo ayayna bartay waxay inoo diiday shareecada islaamku oo inaga dheeraysay dhaqan kastoo xun ayay inaga dheeraysay dhulka ilaahay oo la fasaadiyo xiqdiga iyo xaasidnimada rishka iyo xusu qarinta beenta iyo khiyaanada xuquuqa labada waaducaaqa lagu noqdo dulmiga iyo xadgudubka fawaaxishta qowlahooda kala duwan qowl iyo ficilba ayay inaga reebaysaa idan diintani waa diin akhlaaqeed weeye diin akhlaaqeed weeye bulshaduna waxay ku dhisan tahay akhlaaq hadday bulshadu akhlaaq weydo bulshadaasi waa bulsho baaba'aysa weeye waxaa laga qiimeeyaa bulshooyinka sida akhlaaqiyaadka aynu soo sheegnay iyo kuwa la midka ah say bulshada ku yihiin kuwa wanaagsan aynu hadda tilmaano tirada badan bulshada ay ku badan yihiin oo ay ku fiican yihiin waa bulsho rajo laga qabo mustaqbalkeeda dhaqamada xunxun iyo akhlaaqada xunxun bulshada ay ku badan yihiinna waa bulsho cabsi laga qabo mustaqbalkeeda iyo siduu noqon doono ilaahay waxaynu weydiisanaa inuu inagu arsaaqo akhlaaqda teeda wanaagsan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ina garansiiyo وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين